Asalaamu calaykum asxaabta isku soo laabasho wanaagsan. Halkan waxaa kasii wadaynaa casharadeenna taxanaha Odoo. Waxaan ku dhex jirnay Sales app applicationka Sales. Waxaan soo qaadanay cashir ku saabsan saleska iyo orderada iyo invoice-yada qaabka loo sameeyo. Maanta waxaan baranaynaa qaabka iyadoona order la sameynin invoice loo dalaci karo. Marka waa sales invoice without order, ayadoona dalab ka horeynin inaan micnaha aan sameyn karno wax iibin karno. Macnaha qofkan wax naga dalbanin intuu noo imaaday inaan wax ka gadi karno. So si aad u abuurtid order without sell, sell oo without order ah, waxaad tagtaa application sales, waxaad tagay orders quotation. Marka waxaa jiro order iyo quotation. Order quotationka wuxuu yahay ayadoona qofka order soo dalbanin inaa wax ka gadi kartid. Order-kana waxaa waaye in micnaha qofka uu order uu soo sameeyo, then quotation-ka ay imaato, then bill-ka saas lagu dalaco oo invoice loo sameeyo. Marka steps-kii hore aan soo mari jirnay soo maraynaa. Quotation aan leenahay, customer-ka magaciisa aan gelinaynaa, product-tigii wixii oo dhan aan sameynaynaa. Tusaale ahaan waxaan rabnaa inaan ka gadno Afrah Electronics 3 laptop oo HP ah, Core i7 ah. Marka qiimahooda mid walbo wuxuu gaarayaa 450 uu gaaraya. Marka isku dardar saddexda laptop waa 1350 on account Diina uga gadaynaa marka. Marka waxaa iska ogaataa transactionka hadda hadduu deen yahay, marka hadduu saleska deen hadduu yahay, wuxuu saameyn doonaa 4 account uu saameyn doonaa. 4taas account waxa keliya oo increasing ku dhacaya waxaa waaye oo decreasing ku dhacaya oo yaraanaya waa inventory-ga alaabta naga baxday. Inta kale way badanayaan. Marka laga hadlaayo cost of goods sold iyo inventory-ga, ayaga waxaa saameeya cost price. yacni alaabtan asalkeeda meeqaa ka soo bixinay? Waxaa ka soo bixinay 350 ayaa halkii xabo noogu fadhiyey. Inventory-ga waxaa ka go'i doona 350, halka revenue-ga iyo yacni account receivable ama deymaha dadka aan ku leenahay ay saameyn doonto 450. 450 lagu dari doonaa ayaga. Laakiin cost of goods sold iyo inventory-ga yacni waxaa saameyn doona 350kaas. Marka hal account aa meeshan decrease uu ku dhacaa maadaama account ay tahay waxaa waaye inventory. Haddii lacagta qofka iska bixinayo, wax deyn aan ku yeelanayna ma jirto. Account receivable aa yaraanaya markaas. Cashirka labaad aan qaadan doono waxaa waaye customer return or sales return. Qofkii customer-ka alaab uu soo celiyey maanta, alaabtii waxaan rabnaa inaan ka celino. Yacni ka soo qaadbo, yacni sida purchase-ka oo kale. Qofka vendor alaab ka soo gadnay, waxaan rabnaa vendor-kaas alaabtii hadda aan ka soo gadno qaarkii halaabay inaan u celino. Maanta anaga sales aa joognaa, qofaa alaab naga gatay inuu noo soo celiyo uu rabaa. Alaabta qaabkuu noogu soo celinaa marka. Customer-ka inaan alaabta ka celinaa rabnaa, marka steps aan maraynaa. Waxaan maraynaa 2 step aan maraynaa. 2 step waxaa waaye step-ka koowaad inaan product-iga celino. Alaabtiis yacni warehouse inaan ku soo celino, return product inaan sameyno. Macnaha alaabtii aan ka gadnay inaan warehouse out ay ahayd, hadda warehouse inay noqonay. Bakhaarka inaan ku soo celino, operation aan tagno, transfer receipt aan tagno, yacni steps-kaas inaan sameyno. Step-ka kale wuxuu noqonayaa inaan yacni qofkii customer-ka ahaa lacagtiisi aan u celino. Hadday deyn ahayd ama hadday cash ahayd. Marka hadda markaan waa on account waaye, deyn waaye. Deyntaas inaan ka celinaa rabnaa. Waxaa tagi doonaa account and app aa tagi doonaa, customer aa tagi doonaa, credit note aa dhahaynaa oo then select new customer-ka iyo invoice-kiisa iyo lacagtiisii oo deynta ahayd ama lacagtiisa haddii pay ay ahaydna lacagta waa loo celin doonaa. Tusaale ahaan Afrah Electronics hadaayo waxaan ka gadnay 3 xabo laptop aan ka gadnay. 3daas xabo laptop hal xabo soo celiyey. Marka qiimihiisa waa 450 oo deyn ah. Marka 1370 oo deynta aan ku lahayn waxaa laga jari doonaa 450 oo alaabtan uu soo celiyaa. Marka alaabta inventory-ga waxaa ka go'i doono waxaa ka go'i doono maxaa la yirahdaa 450. Meeshan kalena maxaa la yirahdaa waxaa kaloo yaraan doono maxaa la yirahdaa waxaa kaloo yaraan doono product sell-kii revenue-ga waa laga jari doonaa 450. Cost of goods sold waa laga jari doonaa. Account receivable oo qofkii deynta aan ku lahayn waa laga jari doonaa. Hal account aa badanayo oo ah inventory-ga badeecadii hore noogu jirtay oo hadaayo ka baxdaa lagu soo celinaa. Marka aan isla sameyno marka. So marka hadda waxaa imaataa application-kii Odoo. Haddii madowgan oo yacni uu ku anfici waayey ama aadan arkaynin, waxaa sameyn kartaa meeshan my preference intaad tagtid.
inaa ka badashid. So I think madowga inuu yacni ardayda aysan arkin, laakiin madowgu wuxuu u fiican yahay, indhaha uu u fiican yahay. Marka cashirkeena wuxuu ahaa inaan imaano selliska aan dhahno marka waxay ku kala duwan yihiin cell without order iyo order way kala duwan yihiin. Cell without order markaa samaynayso waa quotation-kan inaa inta imaatid oo quotation aad dhahdid new aa samaysid adagoodan dalab aadan samayn inaad qof wax ka gadid. Laakiin orderka maxay tahay? Order is inaad tagtid orderska hadda lagu geeyey sal order aa lagu geeyey inaad order samaysid then aad tagtid maxaa la yidhahdaa orderska dalabaadka meeshan aa yacni ka fulisid wixii waiting bill ah. So marka aniga hadda sal order ma rabno quotation aan rabnaa waxaan rabnaa inaan customer cusub wax ka gadno. So new aan leenahay meeshan customerka magaciisa wuxuu ahaa Afrax Electronics. Afrax Electronics. I think customer hore u jira ma ahayn waxaan leenahay noo create gareey. Bas Afrax Electronics waxaa ka gadaynaa 3 xabo HP laptop ah. Shan waxaan dhahnaa inta waxaan leenahay HP in 3 xabo. 3 xabo waxay isku noqonayaan 1350. So orderkan waaye confirm aan leenahay. Okay. Confirm markaan dhahno deliveryga oo invoice-ka waxaan samaynaynaa inaan alaabtii geyno. Waxaan leenahay delivery alaabtana warehouse out ah oo 3 xabo ah demandigana la dalbaday. So waxaan leenahay validate hubi alaabta hadda bakhaarka way ka baxday oo warehouse out ah. So si boonada aad u dalacdid waxaa invoice-ka aad u dalacday boonadu nambarkeeda ku dhufo waxaad dhahdaa invoice-kan dalac 3 xabaa la dalbay waa la geeyey invoice-kii weli lama dalacin. Waa ujeedaa invoice-ka dalac create draft dheh. Okay invoice-kan la dalaci rabaa waa 1300 ah. So confirm aan leenahay. Inta akoon uu saameynayna meeshana ka aragtaa oo journal marka tagtid akoonada uu saameynaya waa product sell inventory cost of goods sold intaan way badanayaan ilaa inventory mooye inventory keligiisa yaraanayo laakiin inta kale akoon way badanayaan. Haddii customerka uu lacagna siinayo waxaa soo sheegnay oo pay aan leenahay hadda customerkan deyn ayuu ku qaadanaya alaabtan. Marka waxaa tegaynaa accounting-keena then reporting aan tegaynaa then try balance aa ku dhufanayna. So try balance markaa ku dhufatid waa arki doontaa isbeddelka meeshaan ku imaan doono cost of goods sold wuu batay product sell wuu batay waxaa yaraaday inventory-ga ka go'ay 1500 marka 1500 waxay ku imaanaysaa calculator-ka markaan fiirino calculator-ka markaan fiirino yacni alaabta qiimaha asalka waxay ahayd $350 halkii xabo wax ka soo bixin waxaa ku dhufataa 3 marka oh sorry 3 lagu dhuftay kun yaa 350 waxay isku noqonee 1050 isku noqonee marka 1050-kan ayaa wuxuu ka go'i doonaa inventory-gu ka go'i doonaa inventory-gu ka go'i doonaa cost of goods sold-na waxaa ku darsoomi doono 1050-kaasaa ku darsoomi doona waa ujeedaa laakiin product sell iyo account receivable ayaga account receivable waxaa ku darsoomi doona 1350 isbeddelka waa ujeedaa inventory kana ka go'ay account receivable-na kaasaa ku darsoomay cashirkii horena waan kusoo sharaxnay marka qaybta labaad waxay ahayd yacni customer-kana wuxuu soo celiyay hal product qaabkee u celin karnaa so waxaa u celin karnaa inaan tagno inventory inaan tagno operations aan tagno alaabihii aad gudbinay aan tagno delivery wixii aan gudbinay alaabtii ugu dambeysa aad qof u dirno waatana Afrax Electronics dhan ku dhufano aa dhahno return badeecaa la celinayaa aa dhahno meeqa HP aa la celinayaa return all waa dhihi kartaa aniga waxaa celinaynaa hal xabo oo HP ah hal xabaa leenahay return validate alaabtaas hadda warehouse in waaye qaarkay soo gashay
maadaama sel ay ahayd. Si biilka loo dalaco waxaa la tagaa accounting aa la tagaa, waxaa la tagaa customers, waxaa la tagaa credit note, waxaan leenahay new. Waa kana customerka magaciisa la gelinaa Afrax Electronics waa. Productiga meeshaan la gelinaa waxaa waaye HP laptop. Meeshaan akoonka waa ku go'ayso product sale waa 450 waaye. Waxaa leenahay confirm. So alaabta hadda yacni 450 waxay ka go'i doontaa deynta qofka aan ku leenahay account receivable ay ka go'i doontaa. Inventory-gana waa badan doonaa. Inventory wuu badan doonaa, waa laga jari doonaa product sale-ka mujeda waa laga jari doonaa. Cost of goods sold iyo account receivable mujeda kan qiimaha ka go'ay kan qiimaha ka go'ay isma lahaan doonaan. Meeshaan ima mar. Reporting, try balance. Waxaa weeye account receivable mujeda 450 aa ka go'day. Halkii inventory ay kusoo darsoomi doonto 450 maya 350 aa ku darsoomi doonto. Sababtoo tahay kan waa sell price waaye, kanna waa cost price waaye. Inventory-ga mar walba waxaa ka go'o ama ku darsoomo cost price. Account receivable iyo product sale-ka oo revenue-gana waxaa ka go'o sell price-ka ka go'aya. Cost of goods sold mujeda cost price ka go'aya asaga. Marka cashirka maanta intaas uu ku saabsan yahay qaabkii customer alaab uu naga deysaday aa uga gadi karno, alaabtii u soo celiyna aa ugu celin karno. Marka waa ku mahadsantahay daawashada.